بسم الله الرحمن الرحيم. أول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد سلام وأنا محمد رزاق عبد الله وما تركان إذا كوسو قبين دونا عشر كيني سدحات كويك بوك أونلاين. عشر كيني سدحات وحكادي دونا adding and changing your company's basic information. sidee wax ugu dari kartaa waxna aad ugu bedeli kartaa basic information ka kambanigaaga warbixinada aasaasiga ah kambanigaaga. kambanigeenii markaan soo abuureynay waxaa kaliya aan soo gelinay waxay ahayd kambanigeena magaciisa iyo nooca uu yahay markaas, laakiin ma aanan soo gelin kambanigeena adresskiisa meesha uu ku yaalo ma aanan sheegin, telephone numberkiisa ma aanan sheegin, sidoo kale haddii uu website leeyahay websitekiisa ma aanan sheegin. waxyaabahaasi ayaan rabaa inaan idin tuso maanta sidii loo sameyn lahaa, waana muhiim runtii. sababta waa markaa kambaniga reports aad daawacdid waxaa la rabaa informationka kambaniga oo dhammaystiran inay halkaasi kasoo muuqdaan. qofka marka uu arkaba isla markii waxaa la rabaa inuu ogaado kambaniga meesha uu ku yaalo, meesha uu kala xiriiri lahaa. waxyaabahaasi waa xog aad u muhiim u ah. marka si aan u sameyno waxaan soo kicinayaa Google Chrome. waa kana kambanigeeni hore inoo diyaarsanaa weyaan. intaanan gudagelin habkaan u sameyn lahayn waxaan rabaa inaan tuso sidee kambaniga usoo kacsan kartaa. mar alla markaad xirto browserka aad isticmaalaysid waxaad ku hoosbanaan doontaa inaad haddana mar kale soo kiciso. waa inta badan waxay dadku ku wareeraan. marka waa idin tusayaa habka loo soo kiciyo. okay, waan close garaynayaa. browserka ayaan mar kale soo kicinaya Google Chrome-ki. markaan soo kiciyo halkan waxaan ku qori doonaa website-ka QuickBook. waa quickbooks.intuit.com. dan waxaa dhehaysaa enter. okay, hadda inoo soo kaca marka website QuickBook waad ujeedaan. halkan waxaa ujeedaa free trial iyo sign in. waxaa ku dhufanaysaa sign in. okay, waa kuu soo kacay marka. halkan waxaa kugu qoran user ID iyo password. user ID-ga waxaa gelin doontaa gmail-kaaga, password-kan waxaa gelinaysaa isla password-kiisa ayaad gelinaysaa. okay, aan soo kiciyo marka. halkan kor haddaa ujeeda waxaa save password. haddaadan rabin mar walba ku weydiiyo passwordkaaga waxaa dhehaysaa save. okay, halkan waxaan ku weydiinayaa current phone number. phone numberkaaga hadda geli. ma gelinayo, waxaan ka gelin doonaa company informationka ayaa ku dari doonaa. escape iska dheh marka. okay, waa inoo soo kacay marka. waa ujeedin Mohan Electronics Company. okay, si aan information company u galgelino waxaan imaan doonaa dhanka midig ee companygeena. waxaan ku dhufan doonaa grill icon aa la yihahdaa. ayaad click ku siinaysaa. halkan ayuu ku keeni doonaa. waxaa ku dhufan doontaa account and setting. halkana markuu inoo soo kacay. halkan waxaa ujeedaa kor account and setting. waxaa ugu horeeya waa company, billing and subscription, sales, expenses iyo advance. ana waxaan ka hadli doonaa company qaybtaas ayaan ka hadli doonaa. waxaan kaloo ka hadli doonaa advanced
so saddexdan kale waan u imaan doonaa marka bill and subscription sales iyo expenses waxaan ugu hadli doonaa iyaga si gaar ah waxyaaba baan ugu baahan doonaa waxyaabahaas ayaan ka isticmaali doonaa okay qaybta company aan ku horumar marka hore so company wuxuu kala qaadi doonaa 4 section so sectionka ugu horeeya waxaa waaye company name company type contact information iyo address intaas ayuu kala qaadi doonaa so qaybta horeyso company-ga waxaad gelinaysaa company-gaaga magaciisa iyo loogadiisa waxaa kaloo ku jira business ID number so ID numberkan anigu ma isticmaaleyno laakiin haddii businesska uu ID number leeyahay halkaan aad gelinaysaa so marka si aad wax ugu bedesho ama aad wax cusub u geliso waxaad ku dhufan doontaa pencil iconka ee dhanka midig ku yaalo click ku sii soo ujeeda soma magaca daartid waa bedeli kartaa daartin siisa aad ku dhaafan kartaa haddii wax ka khaldan yahay wixii ka khaldanaa markaas ka bedeli kartaa okay ani wax kama bedelayo magaca siisaan ku dhaafi rabaa waxay imaan doontaa company logo logada companygeena waxaan rabaa inaan logo sameeyo kale so logo haddii aad computerkaaga kugu jirto halkaan aad kasoo gelinaysaa calaamadda balas markay qoran tahay click ku sii okay ujeedaa soma logos so halkaan ayaad balas ay qoran tahay calaamadan bluega aad click ku siinaysaa so halkaan ayuu ku keenayaa marka so meesha ay kugu jirto ayaa ka dooranaysaa tusaale desktop-ka kale waxaa yeela halkaan sawirkeyga kale aan saaraa fiiri so adi loogadaada saaraya then save soo ujeeda soma sawirkeeda soo kor daxali doonta save so qaybta ku xigta waxaa waaye company type nooca companyga uu yahay ayaa sheegaysaa so halkaani dhanka midig calaamadda pencilka ku taalo ku dhufo so nooca companyga uu yahay ayaad halkaani ka dooranaysaa waa taxi form so daarta waxaad iska dhigi kartaa not show or other haddaysan jirin industry-ga ku xigo industry-ga waxaa ku qoraysaa shirkadaada nooc ay tahay markaas adeega ay qabanayso maxay ka shaqeysaa shirkadaada retail trade miya wholesale trade miya waxay tahay service ma iibisaa kaliya meeshaan lagu qor saa kuu keeni doona journal service based business okay anaga laakiin service ma qabanayna waxaan qabanaynaa product ayaan iibinaynaa so product halkaan ku qoranaynaa journal product based business dan waxaan dhihi doonaa safe so waxaa ku xigo company information so halkaan ay gelinaysaa information company-gaaga okay gmail-kaaga waa kana daartaa bedeli kartaa midkaa rabtaa ka dhigan kartaa company formkaaga halkaan geli lelinkan gelina okay halkaan waxaa gelisaa website haddaa leedahay website-kaaga geli dan waxaa dhehaysaa safe so qaybtaan u dambeysa waxay ka hadli doontaa addresska ay ka hadlaysaa oo ah meesha uu ku yaalo company-gaaga so halkaan waxaa gelinaysaa wadada uu ku yaalo tusaale ahaan aan waxaan dhahaa jaalisiyaad road camal road wada jir district ah so halkaan waxaan ku qorayaa city caasimadda waa muqdisho so halkaan waxaan ku qorayaa state ama gobolka banaadir so zip code aa gelinaysaa 00252 daxaysaa safe so sidaas ayaad company information-kaaga ku buuxisay okay advance qaybta ayaan fiirinaynaa waxaa ugu horeya waa accounting the first month of the financial year so waqtiga ay xisaabaadkaagu bilaabanayaan ma january-a mise waa bilal kale so adigaa dooranaysid waxaa kaloo halkaan ku yaalo first month of next year
waa isku mid. accounting methodka isticmaalaysid waa accounting methodke ma accrual mise cash. so inta badan ganacsiyada waxay isticmaalaan accrual. okay laakiin daarta inaad ka badishid pencil iconka ee dhanka midig ku yaalo ku dhufo dan waa kana daarta bedeli kartaa marka accrual cash ka dhigi kartaa. so daarta mujida bilooyinka bishaarta ka dhigan kartaa dan cadidanta save. so anax kama bedeli marka. waxaa kaloo muhiim ah aan raba inaan ka hadlo ayaa waxay tahay currency lacagta. so home currency waa shilin Soomaali. so haddaad shilin Soomaali wax ku iibiso shilin Soomaali ayaad xisaabaadkaaga ka dhigan kartaa. sidoo kale wuxuu fursad kuu siinayaa multi currency inaad isticmaasho laba lacagood shilin Soomaali iyo dollar. so marka aad adiga kugu xiran tahay mid ka harta ayaad dooran kartaa. haddaan rabo waxaan dhihi karaa hal lacag aan isticmaalaa waana dollar. haddaan rabo waxaan dhihi karaa multi currency weeyaan dollarna waan isticmaalaa shilin Soomaalina waan isticmaalaa. so option kada iskale. so halkaan la ku dhufanaysaa bis. so ujeedaa marka currency multi currency wuxuu ahaa off hadday hadda waa on. so marka adiga manage gareysanaya marka other preferences ka ujeedaa date format qaabka ay taariikhdaadu noqonayso. waxaa soo hormaraya monthliga, waxaa ku xiga date-ka, waxaa ku xiga yearka. haddaa ratidna waa date-ka soo hormarsiin kartaa, monthliga dambeey kartaa, yearka. so adiga ayay kugu xiran tahay. so marka hadda waa aan dhameyn waxeen oo dhan. maadaama aan dhameyn waxaan samayn doonaa halkan hoose ee dhan ku qoran tahay ayaan ku dhufan doonaa. so waa ujeedaa sooma waxaa kusoo muuqday kambaniga iyo loogadiisa halkaas ayay kasoo muuqan doontaa. hadda sawirkayga ayaa kasoo muuqan waa tusaale ahaan. laakiin hadda waxaa ku wanaagsan inaad loogada saarato. so marka intaas ayaa ugu muhiimsan cashirkii maanta aan ugu talagalay inaynu ku fahanno sidee kambanigeena wax loogu dari karaa waxna aan ugu bedeli karnaa warbixinadiisa. waxaan idinka codsanayaa inaad channelkani subscribe dhaadaan, videogana like iyo share aad dhaadaan si dadka walaalihiina uu gaaro. aada u mahadsantiin.